Sir Mo Farah has sensationally revealed that محمد فرح العداء الدولي وبطل ألعاب القوى. maalmihii ugu dambeeyey waxay warbaahinta adduunka oo dhammi hadal haysay dokumentari laga diyaariyey taariikhda orodyahanka caanka ah ee Mo Farah. Most people know me as Mo Farah, but ma ihi qofka aad ii malaynaysaan ama aad ii garan og tihiin ma ahan magacaygu Mo Farah. waa qayb ka mida xogihii dahsoonaa ee ku gaadaamnaa nolosha Maxamed Faarax oo uu daha ka qaaday dokumentarigan. badankood waxay ahaayeen xogo fajac iyo layaab ku riday qof kasta oo maqlay. ma ahan Soomaali oo keliya balse gaal iyo muslimba qofkii garan ogaa Maxamed Faarax inan 9 sano jir ah oo looga soo waday dalkiisii iyo dadkiisii in loo geenayo qaraabadiisa oo ku noolaa qaaradda Yurub markii uu yimid Ingiriiskana laga qaatay dhammaan dokumentiyadii uu kala xiriiri karayay qoyskiisa laguna xiray guri ku yaala deegaan uusan qofna ka garanayn qaraabana ku lahayn la marsiiyey nolol lagu qeexi karo addoonsi lagu adeegtay laguna khasbay inuu cuntada u kariyo una qubeeyo carruurtii ay dhaleen qoyskii xoogga ku haystay. muuqaalkeenna maanta ayaynu si kooban ugu dul istaagi doonnaa baalashii qarsoonaa ee uu Maxamed Faarax markiisii ugu horeysay daha ka qaaday lana wadaagay dadka. magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina oo waa Bari Media. ku soo dhowaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. Maxamed Faarax, ama haddii aynu ugu yeerno magaca loo garan og yahay ee ah Mo Farah, ayaa ah shakhsi ay Soomaalidu in badan ka dharagsan yihiin taariikhdiisa iyo guulaha istaba jooga ee uu ka soo hooyo tartan kasta oo uu ka qayb qaato. waa orodyahanka keliya ee dalka Ingiriiska awood u yeeshay inuu xaqiijiyo inuu hal mar 4 bilood oo dahab ah ka qaato ciyaaraha Olombikada, wuxuuna kala qaatay sanadkii 2012 oo uu 2 bilood oo dahab ah ka qaatay ciyaarihii Olombikada ee lagu qabtay magaalada London. sidaasi oo kale sanadkii 2016 wuxuu mar kale Mo Farah ku guulaystay 2 bilood oo dahab ah xilli uu ka qayb qaadanayay ciyaarihii Olombikada ee lagu qabtay magaalada Rio de Janeiro, wuxuuna sidaasi ku noqday orodyahankii ugu horeeyay taariikhda dalka Ingiriiska ee ku guulaysta 4 bilood oo dahab ah. guulahan istaba jooga ee uu xaqiijinayay Mo Farah ayaa ka dhigtay boqoradda Ingiriiska mid siisa naanaysta Sir oo ah naanaysta ugu sareysa ee uu qof gaaro dalkaasi, waxaana gaara ama loo bixiyaa dad dhif iyo naadir ah. boqoradda dalkaasi ayaana ah qofka bixiya. haddaba waxaa dhacday in dokumentari ay diyaarisay shabakadda BBC lana baahiyey 2 maalmood uun ka hor in Mo Farah uu ku soo bandhigay siirad dahsoonaa oo ku saabsanaa noloshiisa oo aysan dadku horay ula socon, dhalisayna hadalhayn xooggan. most people know me as Mo Farah, but dadkoo dhammi waxay ii yaqaaniin Mo Farah, laakiin ma ahan magacayga runta ah. sheekadayda runta ah waa inaan ku dhashay Somaliland. wuxuu ahaa magacaygu Xuseen Cabdi Kaahin. Abdi Kahin. Despite what I've said in the past, si ka duwan sidii aan horay u sheegay, waalidkay weligood kuma noolaan gudaha Ingiriiska. markii aan 4 sano jir ahaa waxa lagu dilay aabbahay dagaaladii sokeeye ee ka jiray Soomaaliya. kadib waxa dhacday inaan kala haboonay aniga iyo familkaygii. aniga iyo hooyaday waan isweynay. kadibna aniga waxaa si sharci darro ah la igu keenay UK, waxaana la igu keenay magac aan ahayn magacayga oo uu lahaa wiil la yiraahdo Maxamed Faarax. Maxamed Faarax, ama haddii aynu dhahno Xuseen Cabdi Kaahin, ayaa markii uu 9 sano jiray loo ambabixiyey dalka Ingiriiska, gaar ahaanna magaalada London. wuxuuna sheegay in haweeneyda uu la safray ama kaxaysay uusan horay u aqoon ama horay ula kulmin safarkiisa ka hor. Mo Farah ayaa sheegay in markii uu tegay Ingiriiska ay ula dhaqantay haweeneydan si ka baxsan bini'aadantinimada, iyada oo ka dhigatay shaqaale. waxaa jirtay waraaqo ama dokumentiyo uu watay oo ay ku xusnaayeen meelaha uu kala xiriiri karo qayb ka mid ah qoyskiisa oo ku noolaa Yurub, uuna u haystay markii uu soo raacayay haweeneydan inay u wado. laakiin wuxuu sheegay in markii ay yimaadeen Ingiriiska ay ka qaaday dhammaan waraaqihii uu sitay kuna jexjexday hortiisa, kadibna ay ku riday qashinka. wuxuuna sheegay inuu markan garowsaday
inuu lugaha la galay mustaqbal mugdi ah oo uusan garanayn goorta uu dhammaanayo. But from day one, the lady, what she did wasn't right. I wasn't treated as part of the family. laga bilaabo maalintii ugu horeysayba sida ay ila dhaqantay haweenaydan ma ahayn wax la aqbali kareeyay ilamana dhaqmin sida inaan ka tirsanahay qoyska. waxaan ahaa ilmaha loo diro shaqo kasta oo guriga ku saabsan. waxaan ahaa sida qof iyaga u shaqeeya. waxay ii xadideen qayb yar oo ka mida guriga iyagoo ii sheegay inaan anigu masaaxadan yar ku noolaado aanna u soo dhowaan qaybaha kale ee guriga ee ay iyagu ku nool yihiin. haddii aan rabo inaan wax cuno waxay ahayd shaqadaydu inaan waardiyeeyo ama ilaaliyo carruurtii ay dhashay haweenaydan. waan u qubayn jiray, waxaana u karin jiray cuntada, sidoo kalena waan hagaajin jiray. haweenaydan ayaa igu tiri, haddii aad rabtid inaad la kulantid qoyskaaga ama reerkaaga waxba cid kale ha u sheegin, haddii kale way ku qaadanayaan waxayna ku geynayaan meel fog oo aadan reerkaaga ka heli doonin. iyadoo ka cabsi qabtay in Mo Farah uu la wadaago musiibadan uu ku jiro macallimiintiisii ama dadkii kale ee uu awoodda u lahaa inuu la hadlo. markii uu jiray 12 sano ayay qoyskii haweenaydan u oggolaadeen Mo Farah inuu galo iskoolka, taasoo ku tusinaysa sida ay uga reebeen asaagii oo ay xitaa uga xarrimeen inuu xilli hore iskoolka ku biiro sida carruurta dhiggiisa ah. Mo Farah ayaa ku noolaa nolol addoonsi ah oo aan wax jixinjix iyo naxariisa lahayn, iyadoo haweenaydani uga faa'iidaysanaysay ka fogaanshiyaha uu ka fog yahay qoyskiisa iyo nolosha qurbe ee uusan waxba ka fahansanayn, iyo xitaa da'diisa oo aad u yarayd oo uusan awood u lahayn inuu cid kale u dacwoodo. culayska haystay daraaddii ayuu sheegay Mo Farah in marka uu aado iskoolka uu soo xiran jiray albaabka suuliga, kadibna uu halkaasi ku ooyi jiray maadaama uusan haysan qof uu uga dacwoodo mixnadda uu ku jiro. wuxuu sheegay si uu isku ilowsiiyo duruuftan aadka u qallafsan ee uu ku jiray inuu ordi jiray xilliyada uu joogo iskoolka iyo marka uu jaanis helaba si uu u ilaawo nolosha walbahaarka leh ee uu ku jiro. Mo Farah ayaa sheegay in mid ka mida macallimiintiisii iskoolka oo la oran jiray Alan Watkinson uu ogaaday nolosha uu ku jiro iyo ciqaabta lagu hayo. kadibna wuxuu la xiriiray qolyaha ka shaqeeya arrimaha bulshada oo ka caawiyey Mo Farah inuu helo qoys kale oo Soomaali ah oo uu la noolaado ka hor intuusan Watkinson ka caawin Mo Farah inuu qaato dhalashada dalka Ingiriiska sanadkii 2000. intii uu socday barnaamijkan dokumentariga ah, Mo Farah ayaa la wadaagay shabakadda BBC fiisihii uu ku soo galay dalka Ingiriiska. Mo Farah ayaa sheegay inuu in badan ka fakaro inankii uu magaciisa ku soo galay dalka, meesha uu joogo iyo sida ay tahay noloshiisuba, isagoo u rajeeyey in meel kasta oo uu daafaha adduunka kaga sugan yahay uu nabadqab ku noolaado. wuxuuna sheegay in wiilkiisa uu ugu magacdaray Xuseen oo ah magaciisii hore ee ay hooyadiis ula baxday. Mo Farah ayaa sheegay inay carruurtiisu ku dhiirigeliyeen inuu daaha ka qaado sheekadiisan qarsoonayd ku dhowaad 39 sano, isagoo sheegay inuusan rabin inuu ku noolaado nolol dahsoon oo leh siro mugdi ah oo ka dahsoon dadka kale ee ay ugu horeeyaan carruurtiisu. Mo Farah oo hadda jira 39 sano ayaa ah mid ka mid ah shakhsiyaadka ugu magaca weyn dalka Ingiriiska. sidoo kalena muuqaalkan dokumentariga ah ee laga sameeyey ayaa sababay hadalhayn ballaaran oo qabsatay dhammaan warbaahinta ugu tunka weyn adduunka, waxayna warbaahin kasta hadal haysaa noloshii addoonsiga lahayd ee uu soo maray Mo Farah yaraantiisii. laakiin waxaa hubaal ah in qof kasta oo meel gaaray oo aynu maanta arkayno jinsiyaddu rabo ha haystee meeshuu rabana horumar ha ka gaare in noloshiisu ay soo martay